waxaa soo kordhaya tirada dadka ku dhintay qaraxii cusla ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa booqday isbitaalada waxa ayna sheegeen inay dhinteen dad ka badan 237 qof, boqolaal kalena ay dhaawacmeen. Qaar badan oo kamid ah dadka dhintay waxay ahaayeen dad shacab oo ku ganacsanaya wadada dhinaceeda, kuwa kale waxa ay marayeen wadada. Shaqaale ayaa dadka qaarkood ay ahaayeen halka kuwa kalena ay arday ahaayeen. dadkaasi oo la sheegay intooda badan inay ahaayeen dad rayid oo waxba galabsan ayaa saameynta ugu badan uu qaraxaasi ku yeeshay. Haddaba dadka dhintay waxaa kamid ah Maryan Cabdullaahi oo ahayd dhakhtarad dhowaan dhamaysatay waxbarashada caafimaadka. Khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray hooyadeed Hindo Yuusuf oo gabadheeda aan weydiiyay ugu horreyntii sida uga warheshay geerideeda. Subaxdii isbitaal ay ka shaqeynaysay markii isbitaal shaqadii soo rawaxan ayadoo meesha baabuurka ka soo raacaysa markaan ku qabsaday. Haye marka hore ma uga warhesheen in meesha ay wax ku noqotay? Isla markii amarku ku dhacayba telefoonkeeda oo faniinay la qaaday anaga kool garaynay waana la ka qabtay gabadha meydkeedii hotel ka gorgor hortiisa yaalana la yiri. isla markiiba waan kala qararnay intaan anaku gaarina eheldeeda oo magaalada dhex joogtaba meesha ka qaadatayba. haye alxamdulillah wixii ilaahay keeno waa shukri. Maryan waxay ahayd qof akademiya hadda jaamacad dhamaysay 6 sano soo dhiganaysa doctoraysanimo hadda buuga difaacashadiisii isku qalqaalinaysay. qof aad u wanaag badan ay ahayd, islaamku jeclaay, eheladu jeclaay, derisku jeclaay, magaceeda dhan la jecelayo ahay. marka ilaahay raxmadiisa la jeclaado. ilmahaaga miyay u weyneed miyay u yaraad mise dhexda ayay ku jirtay? may hal gabar ayay ka weyneed. waa gartay. marka waalidka adiga iyo aabaheed iyo waa wada joogteen oo waa wada koriseen, carruurtiina waa Muqdisho ku wada nooleedeen? Muqdisho ku wada nooleed, waan wada korinay. aabaheed Ingiriisku degan yahay, shalay tuu diyaarada ku qoraay ayada meydkeeda la bixin oo 2 saac ay raboorka ka soo tagay. asagaa soo duugtay, asagaa soo tartiibsaday. insha Allah wixii ilaahay keenana waa shukri. masiibaduna kaliya naguma dhicin, muslimiin badan bay ku dhacday. waa gartay. bal waxaad iga warantaa marka ayada ardayad noocee ayay ahayd intii aad soo barbaarinayso? hooyadeed ayaa taa adiga ayaa dhashay. bal marka waxaad iga warantaa qofkaaga aqoon badan ma jirto, ardayad noocee ayaad ku qiimeyn lahayd, ku tilmaami lahayd gabadhaada Maryan eebaha raxmade? ardayadu waxay ahayd intii qayrkeed qiimo leeyahay aad u qiimo badan bay ahayd, aad u qiimo badan bay bisar soo dhiganaysay, haday jaamacad dhiganaysay. qof degan oo waxay ahayd diinta xaggeeda ku macaan oo waxaan ku leeyahay dhan kastaba ku wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo waxay ahayd ilaahay baa naga jeclaaday. la jeclayay ahayd ilaahay baa naga jeclaaday. hooyooyin badan ayaa ilmo ay sidaadoo kale kusoo rafaadeen soo koriyeen maanta ilmahoodii ku waayay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho shalay. dareenkaaga maxaad nala wadaagi lahayd aragti ahaan? masiibo meesha ka dhacday oo masiibo ummadda Soomaaliyeed soo hoyataa meesha ka dhacday. mideeda kale waa wax xigmad ilaahay xaggiisa nooga timid, qadar ilaahay noo keenay oo qof walba oo muslim inuu ku sabro la rabo weeyaan. oo ilaahay cidna soo dhaafsan male, Allah noo keenay. ilaahay baa wax dila, cid baa dishadaymayno, cid ku eedaynmayno. ilaahay baa ejasheeda iyo waqtigeeda hayay. intii dhimatay iyo la dhimatay iyo ayada ilaahay sina fardowsaan uga baryaynaa. maxay aheeday cid aan ku aaneynayna lama arko. saacadeedii dhamaatay, dadka saacada waqtiga ku dhamaaday. ilaahay baana naga jeclaaday, ilaahay baana oofsaday. intii maxay aheedayto dad uga dhintay iyo intii islaamana ilaahay samarna ka siiyo. ilaahayna aan fadaan ilaahay dhinaca nooga bixiyo. waxna hadin la waaye haddana ummad islaam aan nahay. dhibaatada markay nagu dhacdo islaamana inaan ma argagixin oo ilaahay aan dhibaatada ku samarno, sharta ku samarno, qayrkana lagu shukriyo. waxa waaye wax kale oo noo furan ma lahan, iskama qaban karno oo meel la joogo ma naqaan iyo wax wada. maxay aheeday toona hadda intaan alla dil karto lama arko. waxaad dadkaas laayana wax xag alla aan uga dhacday waaye. ummadan aan maba ku dhicin, wixii laayay bay ku dhacday aanfadu. Hindo Yuusuf oo dhashay